مسؤولينta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo horkacayo wasiirka wasaaraddaasi ayaa waxa ay saaka magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ka daafureen shirka gudoomiyaasha wasaaradda waxbarashada ee gobolada dalka oo wasaaraddu qabato 3 biloodba hal mar waxaana shirkaasi kala soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Ismaan Jaamac Aadan agaasimaha wasaaraddaasi iyo sidoo kale agaasimo waaxeedyada wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco waxaana ugu horeyn bashirkani daafuray agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda waxbarashada Xuseen Cabdi ka 3 biloodla gudoomiyaasha gobolada waxbarashada waxa ugu horeeya dardargelinta waxbarashada gobolada xisaabtanka qorshayaasha guud in loo kuul garo xaaladda waxbarasho ee kolba gobolka lagu qabanayo ama marti gelinaya shirka gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakor iyo agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ayaa tilmaamay sida wasaaraddu uga hawlan tahay tayeynta waxbarashada dalka waxay ku tartamayaan waa ardaygu aqoon ku tartamo laakiin hadduu ardaygu eegta inanka ay jaarka yihiin ama inanta jaarka ay yihiin waxay dhigataa jaamacadda adiga maxaa jaamacadda ku diiday adiga u dhaadna jaamacadda iska tagtay aad culayska saartaan sidii aad u xakameyn lahaydeen ardaygan boodaya waxaan hubnaa in hadhowta iman doonto waxbarasho sare oo iyadna fiican jaamacadaha dalku waxa weeye jaamacadood annaga wasaaradda waxbarashada danahay sanadkan mudnaanta waxa la siinayay waxa waa tayada waxbarashada in kor loo soo qaado وهي كستوى برشلونة تهدي برشلونة تهدي سنة هذا أنت هي المكان كورسو كعلو دي له فرع سنة شركة سورة دوينية أجت شنيا وبرشلونة هذا runtii waa shirkii labaad ee noociisa intii aynu ahayn dawladnimada qaadanay la qabto waana shir runtii aad u qiimo badan oo laga wada tashanayo hawlaha waxbarashada ee dalku halka ay marayaan oo runtii 3 biloodba mar la qabto waxbarashada asaasiga iyo ta dhexe iyo ta sare intaba waa kala shaqeynaa wasaaradda waxbarashada maxamuud waxaan ku wareejin doonaa 3 iskuul ee ugu dambeeyay ee aanu sameynay haddii aanu nahay dawladda hoose degmada Burco magaalada iyo gudaheeda iyo iskuulada maadaama tayadii aanu ka shaqeynay iskuulada gaarigii inta la isaga gudbi lahaa lagu soo kormeeri lahaana waa inaan maanta halan ka ballanqaadna baritaan iibina wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Ismaan Jaamac Aadan oo ugu dambeyntii madasha soo afmeeray ayaa fariin u diray dugsiyada gaarka loo leeyahay kan iyo kuwa kale ee socdaba waxa loogu talagalay tayeynta waxbarashada in waxbarashada sare loogu qaado gaar ahaan waxbarashada dugsiyada dawladdu ay leedahay waxaan rajaynayaa oon isleeyahay waa horumar aynu gaadhnay in gobolada aynu ku qabanno shirarka caynkaas ah oo dawladnimada inta hoos loo daadejiyo dadka gobolada ku nool la tuso in dawladdu agtooda intay timid ay kaga hadlayso ubadkooda aayahooda iyo qiimaha waxbarashada ay leedahay ayaa le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.